Habi wanaagsan daawada waxa ku soo dhawaatay warka habeenimo muuqaalbaaya M24 TV qodobada idin hayna waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in 3 milyan oo Soomaaliya lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan sabab la xiriirta abaar iyo amni xumo dalagyada ka soo gaar dalkeena ayaa wax tar badan u leh dadka raba inay jirkooda ay dhisaan xafiiska xir ilaalinta guud ee Jubbaland ayaa soo bandhigay warbixin sanadeedka xafiiskaasi iyo warbixinadii soo gaaray akhbaraadka caalamka warkii aad ku daawan doontana waxa kamid ah xayiraado midowga Yurub oo ku soo rogay shidaalka ruushka oo lagu wado inuu dhaqan galo markale haween wanaagsan daawadaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada warkayga habeenimo ugu waaweyn iminkana ayagoo faahfaahsan ku bilaabay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in 3 milyan oo Soomaaliya lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan sabab la xiriira abaar iyo amni xumo hadalkan wuxuu ka sheegay Ra'iisul Wasaaraha shirweynaha qaranka ee barakaca qasabka ee daafurtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya kaas oo xoog lagu saarayo yareynta dadka ee saameysay abaarta iyo amni darada barakacayaasha waxaan ka hadlaa kuwa gudaha runtii oo numberka hadda uu sheegay wasiirku oo ilaa 3 milyan hadda si cagaagaynaya uu yahay number ku cabsi gelinayo 3 milyan oo qof oo Soomaali ah oo xoog uga soo baxay yani khiyaarkooda kuma iman ama colaadi ka soo baxsado ama abaar iyo oon iyo silac ka soo cararo wa force wala soo qasbay laakiin khiyaarkiisa kuma soo guuri meesha kuma soo degin 3 milyan ama ku dhawaadka 3 milyan waxa ay cabsi gelinayaan amniga waxay cabsi gelinayaan mustaqbalka Soomaaliya oo dhan ay question iyo su'aal gelinayaan waxa garab socda in ka badan 3 milyan oo arday ah oo gaaray xilliga waxbarashada oo aan waxba baran marka kuwaas waa volcano qarxaysa oo meel ay ku qarxaysanaan la garan doono waa mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhumaya oo daayaca meel u aadaan la garanay waxa inta ka sii daran waa meelaha ay ka adeegtaan qolyaha nabadgelyada ka shaqeeya nabadgelyada darrada ka shaqeeya ee soo qixiyay qaar kamid ah meelaha ay ka adeegtaan ayaa kamid ah maxaa jira sidoodaba meelaha la isku khilaafsan yahay ee dagaaladu ka dhacaan meelaha dadku ay tabar daran yihiin baahiyaha ka jiraan meelahaas way meelaha dhalinyarada laga kaxaysto oo dadka waxyaabo yarar oo micno lahayn lagu kaxaysto laakiin dadka noloshoodu fiican tahay oo guryahooda degan oo wax baranaya oo waalidkii iyo aabihii hooyadii ilmaha ay hareeraha ka taagan yihiin way adag tahay in la iska kaxaysaa waa meelaha falalka jariimooyinka waaweyn ay ka dhacaan ee kufsigu ka dhaco uu ka mid yahay dhibaatadu ay ka dhacdo way marka waxaa ku lamaan dhibaatooyinkaas mustaqbalka taabanaya dalkeena waxaa ku lamaan dhibaatooyin amni darro oo aad iyo aad u culus ayaa ku lamaan dalagyada ka soo baxa dalkeena ayaa wax tar badan u leh dadka raba inay dhisaan jirkooda faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ay u leeyihiin cunooyinka dalka ka soo baxa kuwaas oo dadka qaar ay u isticmaalaan in jirkooda ay ku dhisaan qaar kalena marka ay jimka ay tagayaan wariyayna Cumar Buule ayaa warbixinad muraas la xiriira nooga diyaariyay markuu waa dadaalay waxa waaye dadka inta badan waxay la yaabaan oo kale waxa waaye just dance oo kale markaas sameeynaayo kale dad qaar ay dhaan xataa cirbada isdurta بروتينا استعمال واحد بروتين tan iyo 2018 ayuu yahay macallin gym ama jirdhis joogteele waa almitada ku joogtee waa markuu isbedelaa saas isku bedel magaciisu waa Saciid Ali Axmed kuna magac dheer kabtanka birta waa macallin jirdhis muddo sanado ah tan iyo bilowgii 2018 ilaa iyo xilligan ayuu yahay macallin gym bulshada ayuu ka caawiyaa sidii ay cayilka ula dagaalami lahaayeen rag iyo dumar kala duwan ayaa halkan oo ah Gimatic Gym ee ku yaala degmada Xamarweyne waxa ay u yimaadaan
si ay jirkooda u qurxiyaan isla markaana ay isaga yareeyaan cayilka badan ee saaran jirkooda. waxa uu tababaro ka yahay xarun jirdhis oo lagu magacaabo Gimatic kuna taala degmada Xamarweyne. kabtanka birta ayaan ugu horeen waxa aan weydiiyay wax xilligan sababay in bulshada Soomaaliyeed ay la dagaalamaan cayilka isla markaana ay tagaan goobaha jirdhiska. wallahi jimort waxa bilaabay 2018 waxa xasuusta waxa ka bilaabay deegaanka ceelasha biyaha loo jim ku yaala ka bilaabay 2018 ilaa hadana waxa waay laakiin sida saxda jim waxa bilaabay 2018 waxa ka bilaabay ceelasha biyaha. wallahi arday badan oo imaado oo rag iyo dumar iskugu jiro inta ugu badan waxa waay laba u imaadaan kuwa rabo inay jirka iska jiraan oo weight loss inay sameeyaan rabaan iyo kuwa rabo weight gain inay sameeyaan waan la macaamilnaa waxa waay waan u shaqeynaa kuwa weight loss u baahan weight loss ku sameeyna kuwa weight gain ku baahan weight gain ku sameeyna. Saciid Ali Axmed oo ku magac dheer kabtanka birta ayaa dhanka kale waxa uu ii sheegay in qofkii joogteeya jimka ama jirdhiska uu gaari doono hadafkiisa ah inuu jirkiisa dhiso isaga oo tilmaamay in uu caawiyo qof kasta oo doonaya inuu jirkiisa wax ka bedelo. wallahi waxa waay wax walba dadaal hadda dadaashidna waa gaari wax walba waxa waay dadaal leeyahay marka waa dadaalay waxa waay dadka inta badan waxay la yaabaan oo kale waxa waay just dance oo kale markaas sameeynaayo kale dad qaar ay dhaan xataa cirbada isdurta بروتين استعمال واحد بروتين استعمال عربض مش دوره cunada dalkaas aan ku noqdo laakiin waxa waa markii aad joogtay la waa almintada ku joogtay waa markuu isbedela asaas isku bedela. inta aan warbixinteena ku jirnay kabtanka birta ayaan weydiiyay sida cuntooyinka dalka ka baxa qofku uga caawin karto inuu jirkiisa dhiso iyo hadii ay jiraan dhibaatooyin ka dhalan kara borotiinada dibadda laga keeno oo dadka qaarkii ay isticmaalaan. way jiraan cunooyina sameeyna oo diet sameeyna dadka caatada dadka cayilan usmeena rag iyo dumar sidoo kale borotiinaha ee supplements oo check up soo mareen oo waxa waay oo caafimaadkooda la hubo waay marka waa u qornaa diet-ka waa u qornaa borotiinisna waa siinaa. wallahi 180 cunada dalka u qornaa laakiin 20 kilo kale waxa waay inkastoo borotiin marka qaar oo lama huraan ahayn waa u qornaa laakiin waxa waay 180 ardayda waxa siinaa ku dhiirigelinaa inay cunooyinkooda dalka isticmaalaan. ugu dambeyn kabtanka birta ayaa qof kasta ku dhiirigeliyay inuu jirkiisa dhiso si uu u helo caafimaad sidoo kalena uu u yeesho jir qurxoon oo cayil ka badqaba. sax waay sida saxda waxa waay horta jimku marka oo la qeexayo jimku waxa lagu qeexaa buufin la areena camal qofku markuu jim qaado buufinka la areena hadii ariyada laga daaro waa ariya baxa Soomaan mar qofku inuu joogtay waa jimka mar haduu joojiyo waxa waay jirkiisu isku dhaca qof nooc kale noqonaa. marka jimku waxa qurux badan inaad joogtaysto maalintii 1 hour ma ka badno 1 hour ka badan maalintii dhan ka badan inaad jirkaaga waqti gelisid marka inaad joogtaysid waa jimka. wallahi gacan furun soo dhawaada leenahay waxa waay macallimiin dhameystiran qalab tayo leh astaanteen waay meel walba aad joogtiin waa idinku soo dhaweynayna jimka wuxuu ku yaala Xamarweyne gaar ahaan Fiiroma macallimiin khibrad sare leh oo joogaan dhamaantii meel walba aad joogtiin soo dhawaada idin leenahay. Umar Buule M24 TV magaalada Muqdisho. xafiiska xeer ilaalinta guud ee Jubbaland ayaa soo bandhigay warbixin sanadeedka xafiiskaasi iyo warbixinadii soo gaaray. Maxamed Sheekh Ismaan xeer ilaalinta guud ee Jubbaland ayaa sheegay in dacwad kala duwan ay soo gaartay xafiiska kuwa la xaliyay kuwa wali kiisaskooda ay socdaan iyo kiisas kale oo dib loola noqday. waxaan halkan kula wadaagi doonaa warbixintii sanadkan ee xafiiska soo gaartay ama warbixinta waxay noqon kartaa warbixinta maxaa la yiraahdaa faldambiyeedii soo gaaray ee xafiiska iyo halka ay gaareen oo ku kala dhamaadeen ba insha Allah taala bulshada la wadaagi doona. marka insha Allah taala waxa rabaa in bulshada Soomaaliyeed la wadaago bisha 12aad baa ku jirnaa hadda sanad walba bisha 12aad awalkeedina report-kaas la soo saaraa. marka si kooban markaan idinku la wadaago sanadkan waxa soo gaaray xafiiska xeer ilaalinta guud ee dowlad goboleedka Jubbaland kiisas gaarayo 367 kiis waxaynu ka kala yimaadeen sideedaba xafiiska laba jaho ayay u yimaadaan maxaa la yiraahdaa kiisasku qaybna waxay ka yimaadeen dadweynaha si toos ah xafiiska cawsha soo gaarsiiyay qaybna booliiska ayaa gungaarka soo sameeyo halka soo gaarsiiyay xafiiska habraacaas uu booliiska soo maray ay soo maraan 30 kiis ayaa dadweynuhu xafiiska si toos ah u keesteen oo soo dacwoodeen 337 kiisna xafiiska waxaa keenay maxaa la yiraahdaa booliiska gungaarka soo sameeyay. marka guud ahaan waxay noqonayaan 367 kiis
marka 367 kiis halkay ku kala dhamaadeen baan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago iyo warbaahintaba waxaa gal xiris laga sameeyay galkoodii la xiray ee dadku ay ka heshiiyeen waayo dadka markay dacwad ka furtaan xafiisku waxaa loo ogol yahay kiisaska uu sharci ogol yahay inay ka heshiiyaan waa loo ogol yahay waxaa galkaas la xiray oo ay dadka ka heshiiyeen 97 kiis 97 kiis ba galkoodii la xiray dadkoodii baa sulx ka gaaro ka heshiiyay waxaa eeda laga laabtay ee kalaawish laga sameeyay 84 kiis eed kalaawish waxaa la yiraahdaa kiiska maxkamad baa loo gudbiyay kadib baa asbaabihii gal maxaa eeda looga laaban lahaa la helay kadib ayaa eedaas laga laabtay waxyaalaha lagu laabto waxaa kamid ah cadeemo ku filan baa kiiska loo heli waay ama dadkii baa dacwadii ka noqdo ka heshiiyey kiiskiina maxkamadda ayaa loo gudbiyay eed kalaawish ayaa loo sameeyaa marka 84 kiis baa maxaa la yiraahdaa eed kalaawish loo sameeyay waxaa hadda socdo oo maxkamadaha ka socdo darajooyinkooda kala duudugan 29 kiis oo hadda socdo oo weli socdo oo ugu dambeeyo kiiska aan hadda loo gudbi doono oo hadda saaka hortiina ku saxiixay oo kiis maandooriya asana wuxuu ku jiraa kiisaska hadda socdo oo hadda maxkamadaha dhexda ku socdo maanta ayaa loo gudbi doonaa kiiskii uu dambeeyay waay ee sanadkan inkastoo hadda bisha 12aad aan hadda aan ku jirno laakiin reportkan kiiskii uu ku soo xirmay waay ururada warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa si adag u cambaareysay go'aankii maxkamadda gobolka Banaadir ee dib u dhigtay dhageysiga kiiska xogayaha SJS Cabdalla Axmed Muumin xogayaha ururka SJS ayaa ilaa bisha Janaayo ee sanadka 2023 u dhigtay dhageysiga ee daloo heesto wariyayna Maxamed Cabdi Xasan oo wararkaasi la socday ayaa warka inooga diyaariyay isku imaatankan ururada madaxa bannaan ee saxaafadda ayaa looga hadlay in mar kale dib loo dhigay kiiska dhageysiga ee daloo heesto xogayaha ururka SJS Cabdalla Axmed Muumin waxay sheegeen in ilaa ay sanadka cusub bilowgiisa dib loo dhigay dhageysiga taas oo ay sheegeen in dhibaato ay ku tahay xogayaha SJS Cabdalla Axmed Muumin ururada warbaahinta iyo wariyaasha ka howlgala warbaahinta gaarka ah ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud looga fadhiyo inuu yareeyo tacadiyada ay la kulmaan warbaahinta gudaha gabagabadii ururada warbaahinta ayaa si midaysan u sheegay in dowlad kasta oo timaada ay bartilmaameed ka dhigato warbaahinta inta siyaasadda ay banaanka ka joogaan ay soo dhaweystaan warbaahinta si aragtiyadooda ay ugu gudbiyaan waxaan rabnaa inaan codkeena ku arinta la xiriirta xoriyadka qaadista Cabdalla inaysan ahayn runtii mid farxad gelinaysa shaqadeena mid farxad gelinaysa howlaha ay warbaahintu u hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale wadanka ugu sareeysan waxaan rabnaa inaan xasuusino in sharcigu uu yahay wax dadka kala haga madaxweynuhu xafiis ku fadhiyo iyo ra'iisul wasaaruhu xafiis ku fadhiyo uu yahay dastuurka qodobka 18 ee dastuurka farqadaha 1 iyo 2 iyo 3 waxay qabaan in xorriyadda saxaafaddu ay tahay mid madax bannaan aan la tafaftiri karin sidoo kalena ay xaq u leeyihiin warbaahintu inay tabiyaan wax kasta oo danna u ah bulshada Cabdalla runtii anaga suxufiyiin ahaan waxaan u aqoonsanahay nin u dooda una qareema suxufiyiinta iyo warbaahinta macnaheeda maaha markaan sidaa leenahay wax kasta oo sameeyaan ku taageersanahay laakiin waxaan rabnaa sharcigan isla aadno waxyaabaha hadda ka cabanayno waxaa ugu weyn oo marka laga tago xorriyadda saxaafadda iyo xeerarka kale ee lagu cadeeyay shuruucdeena waxyaabihii xaquuqda u lahaa oo muwaadinku uu xaqa u lahaa oo dastuur ku qornaa buu Cabdalla ilaa hadda la'aya waxaan rabaa marka inaan ka hadlo xarigiisii kadib maxkamadaa la tagay Cabdalle waxaa loo jaray rumaan 45 cisho ah buu dhamaystay maxkamaddii la rabay in lagu laabto oo haddana arrintiisii loo fariisto waxaa looga sii daray 34 cisho oo bilaa sharci ah 34 cisho oo bilaa sharci ah dagaalkaas oo dhan waxaa hormuud ka ah waxaa riixayo 3 wiil oo ilmo adeera ah oo dawladda ku jiro misla soconaa waa 3 wiil oo ilmo adeera ah oo dawladda ku jiro awood dawladeedna isticmaalaya waxaa ugu horeeya waa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya العدالة oo banaanka gudaha meel kastaba ku leh dawladda Xasan Sheekh ana milkiila ka ah waxa anaga rabo ama waxa anaga kooxdeen ay rabto ayaa ka soconaya yuu matala asaga ya awood dawladeed in shakhsi lagu dulmiyo Xasan Sheekh oo saas xaq ma ah Cabdalla oo ahaa
ودودها أما قريمها ورياش سوماليات weliba rag ugu firfircoona marka loo fiiriyo isagoo xitaa marka uu hadlaayo ama uu ka hadlaayo arrimahaasi soo xiganayo wax sax ah sharciga markaas ma garanaysaa waxa dhigayo weliba dastuurkeenan hadda inoo qoran ee ku meel gaarka ah aan weli dhamaystirmin ha ahaato iyadoo sida ay jirto haddana qofkii haddii la xiray maxaa loo xiray cid iska weydiisay madaxda qaranka oo intaas aan qaylinayno aan leenahay madaxda ugu sareysa waxaan ka codsananaa saas maxkamaddii waxay sheegtay qodobo oo weli aan la iftiiminin waxa ay yihiin weli waxa waaye Cabdallah wuxuu ku xanuunsanayaa xamar waxa loo diiday familkiisa waa lagu celceliyeen badan waa laga hadlay arintaas waxaan marka madaxda sare dalka ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan ka codsanaynaa arintan oo dib mar kale aan maanta u xusuusinaynaa Cabdallah weli waa xiran yahay waxa uu ku xiran yahay ma naqaano waxaan u baahanahay in cadaaladaas uu helo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegeen in markii musharax uu ahaa uu wax badan ka caban jiray in la caburinayo isagoo warbaahinta u marin jiray cabashadiisa balse su'aasha la isweydiinayo ayaa ah warbaahintii uu shalay xasan sheekh maxamuud maciin baday markii uu musharax ahaa in maanta dowladdiisu ay caburiso waxay ka dhigan tahay wadada isku xirta isgoosiyada dabka iyo sayidka ayaa dib loo furay wadadaas ayaa xirneed dhowr toddobaad iyadoona ganacsatada halkaasi ee nolosha ka raadsada ee cabasho ka muujiyeen wariyayna Cumar Buule ayaa warka inooga diyaariyay isku socodka gaadiidka inta u dhaxaysa isgoyska dabka ilaa iyo sayidka ayaa mar kale dib loo furay iyadoo ganacsatadii ku ganacsan jirtay halkaasi ay albaabada isugu laabeen goobahooda ganacsi intaas kadib ganacsatada ayaa waxa ay la kulmeen saraakiisha ugu sarsareysay ee amniga iyaga oo kala hadlay xirnaanshaha wadadaasi sheegayna inay saameyn ku yeelatay ganacsigooda saraakiisha iyo ganacsatadan oo kulan waqti badan qaatay yeeshay ayaa ugu dambeyn waxaa loo sheegay in dib loo furi doono wadadaasi goordhow ayaana dib loo furay isgoyska dabka ilaa iyo sayidka oo markii hore loo diiday gaadiidka inay isticmaalaan wadadan ayaa waxa ay muhiim u tahay dadka ganacsatada ay halkaas ku ganacsata iyaga oo sheegay ganacsatada xirnaanshaha wadadani inay dhib badan kala kulmeen isla markaana ay waayeen cid wax ka iibsata madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay maalinka qarannimada dalka Imaaraadka Carabta مسؤولين كترسن سوماليلان مدح ka socotay dalka Imaaraadka ayaana ka qayb galay wariyayna magaaladaasi Muqtaar Carab ayaa warka halka ka soo diray munaasabadan oo lagu xuseeyay 11 gurada maalinta qarannimada dalka Isugu Imaaraadka Carabta oo lagu qabtay magaalada Hargeysa waxa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland wakiilka dawladda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliland iyo danjiraha magaalada Hargeysa oo fadhiya dawladda Taiwan iyo mas'uuliyiin kale oo tiro badan سعيد أحمد agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa ugu horeyn dawladda Imaaraadka Carabta ku bogaadiyay 11 guurada ka soo wareegtay maalinta qarannimada dawladda Isugu Imaaraadka Carabta annagana sharaf weyn bay noo tahay wasaarad ahaan inaanu kala soo qayb galno oo ku maamusno oo la dabaaldegno maalintooda dhamaantiin marka kulligiin inta ka soo qayb gashay madaxda dawladda iyo mas'uuliyiinta kale ee saxaafadda aad iyo aad ugu mahadsantihiin Ambassador Abdullah Nabi wakiilka dawladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaga oo ku hadlaya afka dawladda iyo ka shacabka Imaaraadka Carabta ka mahad celiyay sida ay Soomaaliland uga qayb qaadatay xuska maalinta qarannimadooda Saciid Sulub Maxamed wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland ayaa isna shacabka iyo dawladda Imaaraadka Carabta ku hambaliyay 11 guurada maalinta xornimada dalkaasi xafladda kulli baaniga waxay xasuusay inaynu ka weyneen inaku haddaynu reer Soomaaliland nahay reer Imaaraad 11 sanadood waxa kale xusuusay oo aan sawirkayga maskaxda dib ugu celiyay talo hadaydu maalintii calankiina gaar u taagan lahaydeen maanta soo caalamka kamid mid noqoteen Imaaraadkaas oo kalena mid noqoteen ayay nafteedu yara sheegaysaa warwarkeedu marka ilaahay waxa inooga baryayaa innaka ayagana ilaahay waxa uga baryayaa inuu halka ay meel ka sii horeysa gaarsiiyo annakana ilaahay waxa inooga baryayaa in taaya mid lamid ah aynu ku hamino wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa Imaaraadka Carabta ku bogaadiyay dadaalka koob iyo konton jirsaday ee ay ku talaabsadeen tan iyo intii ay xornimada qaateen isla markaana ay midoobeen imaaradaha uu dalkaasi ka kooban yahay Dr. Ciise Kayd waxa uu ka warramay horumarka dawladda Imaaraadku ka saaciday Soomaaliland gaar ahaan fursadda Soomaaliland ugu jirta heshiiskii Soomaaliland iyo shirkadda DP World kaas oo ka dhashay xiriirka diblomaasi iyo midka ganacsi ee dawladaha Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka warramay xiriirka soo jireenka ah
ee dalalka Somaliland iyo Imaaraadka Carabta. waxaynu leenahay hambalyo sanad guurada 11aad sanadkan kiisa xigana ku gaadha horumar nabadgelyo iyo barwaaqo runtii xiriirka ka dhaxeeya Somaliland iyo waddanka Imaaraadka Carabtu waa xiriir soo jireen ah oo iyadoo aan dowladaba jirin shucuubta labada dal ay xiriir lahaayeen qoto dheer oo ganacsi iyo mid xadaaradeed labadaba ay lahaayeen markii dowladnimada casriga ay timidna ay ahayn dadkii ugu horreeyey ee xiriirka yeeshay ama ha la ahaado ha laga tirsanaado dowladda Soomaaliya ama intii dambe ee dowladda Somaliland 31 sanadood ee ugu dambeysay xiriir aad u qoto dheer ay lahaayeen runtii in ammaan mudan marka laga yimaado xiriirkan koraya ee muddadii hadda 12 sanadood ee ugu dambeysay jiray marka laga yimaado dowladda Imaaraadka Carabtu inay ahayd xilliyadii dhibka ay dadkeenu ku jireen meelihii u noqday hoyga ama soo dhaweeyay inay badbaadiso nolosha dadkeena. ugu dambeynna madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa dowladda iyo shacabka Imaaraadka Carabta ku hambaliyay sanad guurada 11aad ee maalinta qarannimada ee dalkaasi waxaana uu ka warramay waxyaabaha ay labada dal ee Somaliland iyo Imaaraadku wadaagaan. aad iyo aad bay sharaf weyn iyo farxad ugu tahay in walaalaheena aan kala qayb galno sanad guurada 11aad ee maanta u dabaaldegayaan. waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa anigoo ka hadlaya afkii madaxweynaha iyo afka qaranka Somaliland ka dowlad ahaan iyo ka shacabba walaalaheena Imaaraadka Carabta isku tagay Imaaraadka Carabta hambalyo Allah hay sanadkiisa ilaahay idinku gaarsiiyo bashbashyo barwaaqo sida 11 sano ahayd ku soo noolaayeen nolol aad u qiimo badan maamul wanaag wadajir iyo sharaf waxay la warjeynaa inay u sii wado sharafta iyo maamul wanaaga iyo dowladnimada qiimaha badan leh ee maanta kaga dhex muuqdaan caalamka jira ku noolahay hambalyo baan leeyahay sanad guurada 11aad. 2 Disembar sanadkii 1971 ayaa ay ahayd markii boqortooyadii Ingiriisku xornimada siisay Imaaraadka Carabta xilligaas oo ay midoobeen 7 imaaradood ee dalku ka kooban yahay waa Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwayn, Ras Al Khaimah iyo Fujairah waxaana goobjoog ahaa madaxda 7 imaaradood marka laga reebo amiirka imaaradda Al Quwayn oo maalintaas xanuun ku maqnaa balse u soo wakiishay wafdi ka koobnaa Sheekh Rashid, Sheekh Saqar iyo amiirkii imaaradda Ras Al Khaimah. wali waxaad daawanaysaa warka haweenaad kala socota shaashada muuqaalbaahiyaha M24 TV iminkana xubintii ciyaaraha waxaan la diyaaray wariyayna Ibrahim Hanuuniye. iyadoo ay weli si habsami leh dalka Qatar uga socdo koobka adduunka 2022 ayaa waxay iswaajahayaan xulalkii u soo baxay wareegga 16 is-aragga 16 iyagoo u sii gudbaya wareegga 8 dhamaadka. xulka France ayaa ka soo baxay ciyaar adag oo xamaasad badan oo ay wada ciyaareen xulkaasi Poland oo ku soo ilaatay 3-1 iyadoo ciyaartaasi laga qoray dhacdooyin cajiib ah oo ay hogaaminayso in Olivier Giroud uu noqday weeraryahanka ugu goolasha badan leh ama ciyaartoyga ugu goolasha badan leh abid xulka France halka Kylian Mbappe uu ka dulmaray Cristiano Ronaldo gool dhalinta koobka adduunka halka uu barbareeyay Leo Messi isagoo la yimi 9 gool intii koob adduun uu ka qayb galay walow ay koobka adduunku kooban yihiin oo ay yihiin 2 koob adduun kaliya halka ciyaartoydaasi waaweyn ee Cristiano Ronaldo iyo Messi ay soo ciyaareen min 5 koob adduun. ciyaartii labaadna xulka qaranka England ayaa xasuuqay xulka Senegal kulankaasi oo ku soo dhamaaday 3-1 iyadoo uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay koobka adduunka Harry Kane. xulka Senegal oo la dhibaatoonayay maqnaanshaha Sadio Mane ayaa sidaasi ku macsalaameeyay koobka adduunka dalka kaliya ee qaaradda Afrika matali doonana waxa uu noqon doonaa xulka Morocco oo habeen dambe dheeli doona wareegga 16 waxaa sidoo kale ciyaaro adag la ciyaari doona caawa ciyaarta gabagabada
ku dhaweeyay iminkii haatan socotaana waxaa fooda istaraya xulalka Croatia iyo Japan halka xulka Brazil uu la ciyaari doono xulka Kuuriya. Xulka Brazil ayaa ah xulalka loo saadaalinayo koobka adduunka waxaana u soo laabtay laacibkoodii Neymar da Silva. هذا يوم السنة ورينا إبراهيم هنوني يمكن أخبارات كعالم كحيرادو ميدوغو يروبو كسوروغي شدال كروش كولغو وضو إنو دقنقلو waxaa lagu wadaa inuu dhaqan galo xayiraado midowga Yurub oo ku soo rogay shidaalka Ruushka waxaa sidoo kale la filayaa inuu dhaqan galo $60 oo lagu jaangooyay barmiilka shidaalka Ruushka talaabadan ayaa waxaa jimcihii ku heshiiyay midowga Yurub dalalka hodanka ah ee G7 ee Australia wadamada reer galbeedka ayaa doonaya in ay xadidaan awoodda Moscow ay ku sii wadi karto duulaanka ay ku hayso wadanka Ukraine qodobkaasi ayaan u dambeeyay warkayga habeenaad kala socoto shaashada muuqaalbayaha M24 TV inta ku kulmi doona wararkeena xiga sida ay nabadgeli saaxiibaya